bismillah magaalooyinka muqdisho jowhar beledweyne gaalkacyo garowe qardho boosaaso baran baydhabo 13 magaalo oo aan aruurinay statisticskan 2019 waxaa kasoo degi jirtay intaan diyaaradaha qaadka la joojin 3750 jawaan marka xisaabaadka lagu dhufto halka jawaan qiimihiisu waa 450 total lacagta u safe garowday 9 bilood oo la soo dhaafay intii diyaaradaha qaadka la joojiyay waa 455,625 adigu qalanka qaado waa 3750 jawaan oo lagu dhuftay $450 oo jawaankii ah oo lagu soo dhuftay 9 bilood lacagta intaas la eg dalkay u baaqatay dabcan kobaca dhaqaalaha ayay ka mid tahay laakiin waxaan rabaa inaan fiiriyo caafimaadka tan iyo intii la joojiyay qaadka cudurka coronavirus awgiis Kenya coronavirus aad buu u kacay maanta latest update-ka coronavirus sida aan ka soo xignay website-ka Kenya dhimashadu waxay maraysaa 1450 rate-ka ama spread-ka sida u fidayana waxay maraysaa high peak second wave-ka wuxuu marayaa meeshii u sarreysay inta hadda statistics-ka la howrinayay dowladda Kenya saasoo tahay iyadoo intaasoo dhan jirto bay waxay ku doodaysaa qaadkan loo fasaxo maxaa Soomaaliya u dan ah waxyaalaha laga faa'iiday qaadka haddaan amniga ka fiirino waxa ka mid ah ciidamadii Soomaaliyeed oo ka raystay qaadka oo la oran jiray waa dadka ugu badan oo qaadka isticmaala safarkayga hadda aan Soomaaliya kala soo noqday magaalooyin badan ayaan kula kulmay qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida waxayna ii sheegeen isticmaalka qaadku wuxuu hoodaadeeyaa ama distract garaya maskaxda askariga Soomaaliyeed so intii qaadka maqnaa waxa hagaagay amnigii waxaana marag ka ah oo ka marxad ka ah improvementiga weyn oo amniga oo magaalada Muqdisho ka dhacay sababahaas oo dhan marka la isku soo duubo not to mention caafimaadkii bulshadii iyo qoys burburkii oo yaraaday sababahaas oo dhan marka la isku soo duubo danta Soomaaliya kuma jirto in diyaaradaha qaadka la fasaxo qaadku soo galaa si ismaagalin ku soo galaa wuuna jiri doonaa laakiin diyaaraddu waa accessibility iyo availability at meel walba Soomaaliya ayay fududeyn jirtay waana in la joojiyo